Noloshu waxay haysaa dhaba Ilaahay Subxaanahu wa Tacaala u doortay, waana dariiq tolmoon oo meel looga leexdaa jirin, balse qofkii isku daya inuu si kale u maareeyo waxa uu jidka nolosha kala kulmaa dhirbaaxooyin aad u kulul. Markay noloshu u run sheegto, waxaa qofkaas hor yimaada murug, naxdin, qoomamo iyo walaac iyo fikir aad u daran, balse isla markaaba qofku waxa uu qaataa go'aan adag oo noloshiisa wax kaga beddelayo. Waxa uu ku dhaqaaqaa inuu ficil qaato, hase ahaatee waa qofka damiirkiisu nool yahay ee uu soo jeedo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada saaxiibayaal, Ramadaan mubaarak. Waa mar kaliya muuqaalka loo xiiso leh. Ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta, balse intayna muuqaalka gudagelin, muuqaalka like saar. Sidoo kale haddii ay tahay markii kuugu horeysay eedna soo booqato, subscribe channelka oo ka mid noqo saaxiibadan halkan ku saaxiibnay. Haddaad hore noola joogtayna waad ku mahadsan tahay, siina share gare. Qisadani waa qisada Khaalid al-Asari. Qisaduna waxay ka dhacday wadanka Masar, magaalada Qaahira, jaamacadda al-Asari. Qisaduna waxa u dhacday sida tan. Khaalid al-Asari waxa uu ahaa nin shaqaale ah oo ka shaqeeya nadaafadda masaajidka. Isagoo noloshiisa hore ka sheekeynaya, waxa uu yidhi, shaqadaydu waxay ahayd inaan masaajidka nadiifiyo, oon qashinka ka guro, habeenkiina aan faynuusyada shido, oon gaasta ku shubo. Habeenada ka mid a, anigoo masaajidka dhex maraya oo sida faynuusaan doonayay inaan shido oo aayar soconaya, ayaan adinka ku dhuftay nin masaajidka dhex jiifa. Ninkiibaa igu qayliyey oo igu yidhi, miyaad indhalaada ay? Anigoon weli u jawaabin buu haddana igu yidhi, maxaad ismooday? Ma Sheekh al-Asari baa tahay? Kelmadii ninkii igu yidhi ayay gubtay sidii dhimbiil daba. Waxaan isweydiiyey, raggan uu sheegayaa miyaanay adigoo kale ahayn? Adigu miyaanad sheekh noqon karin? Adigu miyaanad wax baran karin? Waxaan go'aansaday inaan noloshayda bedelo oo aan wax barto. Kadib waxaan bilaabay inaan ka qayb galo muxaadarooyinka, dhageysto. Waxaan bilaabay inaan qalin iyo buug soo qaato oon diinta barto. Waqti aad u dheer ayaan ku dadaali jiray barashada diinta. Habeeno badan baan u soo jeedi jiray inaan cilmi yeesho oon wax barto. Tacab iyo dadaal dheer iyo halgan iyo adaygaan u galay barashada diinta. Kadib ayaan gaadhay hadafkaygii iyo halkii aan ku haminayay. Waxaan ka mid noqday culimada jaamacadda al-Asari. Sheekh Khaalid al-Asari waxa uu qoray buugaag badan ay ka mid yihiin naxwaha iyo kuwa carabiga aasaaska u ah. Haddaba daawadow, haddii ay kula soo gudboonaato xaalad noocan oo kale ahi oo aad ka xumaato kana murugooto ama ay aad ku damaqdo, waxaad ogaataa inay tahay maalin la go'aan qaato oo aad noloshaada bedeli karto. Haddii aad go'aanka naftaada hoggaanka u qabatid, aad gaadhi karto meel kastoo qof kula midi uu gaadhay. Waa qofka damiirkiisa soo jeeda oo qofkaanay taasi damqin, maaha mid ka gudba rafaadka uu nolosha kala kulmo iyo ku digashada filkii. Daawade, waad ku mahadsan tahay haddii aad soo gaadhay ilaa dhammaadka muuqaalka like saar. Sidoo kale haddaad nagu cusub tahay, subscribe channelka. Haddaad hore noola joogtayna waad ku mahadsan tahay, siina share gare. Wassalaamu calaykum.